waxaa maqlay reer Liechtenstein adduunka iyaga ugu lacag badan rumiya way ugu lacag badan anaga ma aha halkan waa Liechtenstein waxay raada halka u socdaan waa Switzerland ha baasaboorka way meeqa sano lagu qaataa dalkan 30 sano lagu qaataa yaa 30 sano lagu qaataa 12 sano dalka joogtaa integration ama maxaa samaysa horumar maxay ku caan tahay Liechtenstein السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو channelkaygi waxaan joogaa Liechtenstein qadra ayaa igu soo dhawaysay Liechtenstein xageen joogna magaalada geed waxa ku leenahay marka hore ku soo dhawaa wadanka Liechtenstein maanta waxa joognaa caasimad Vaduz oo ay ka dhacayso dhalashada boqortooyada Liechtenstein sanad guuradoodii ay tahay maalinta qaranka ay tahay maanta 15 Agoost magaalada Liechtenstein ama Vaduz aan dhaw magaalada inta yarmiya waa inta magaalada ha gees laakiin gees waa inta وانا عاصمتي ودن كليختنشتاين waxaa ku nool 5,000 ilaa 5,000 ilaa 6,000 qof wada ku nool haan hadda xaruntii booliiskan joognaa ama xabsigan dhaw jeelka waxa maqlay rumiya qofka haduu muddo dheer lagu xukumo Liechtenstein lagu maxro xaga lagu xiro waxa loo gudbiyaa Austria xabsi ku yaalo kan waa si ku meel gaar kadib dadka waxa loo dhaadhiciyaa xabsiyada kale ee Austria وهاجاك دسمع أنا قدام سمحتك اسمع أنا قدام بين وكام كل إسكديبه ودتك قحوتي قعد سنة قحوتي نمدو هذا إلا يعني دقنا شيء كه لا وكام كلوه هاي كام كواي وكام حبسي كام كسكدوين حبسي كام كسكدوين قولي بقال حاك جرت حرون دي بوليسك كذا لسكديبه ولا إسكديبه ما يفهم بوليسك صامر سفري وحو كاديجا كام كان إيمان سمر كلوه سكدنا ما كسؤالك وديني قحوتي نمد عنده ما سيدا يوروبا تيدين مسوحاتين سي سويسرلاند اف تي وحن وسيدا سيدا سويسرلاند شرقية وحيسكا شبهان اسكا اجيهين سويسرلاند اف ان بي الى سي وحلي راهي قاتان عدد كلاسية سويسرلاند واسيدا وكله لوقدا لعقتا وحوال بودنكا وحي لودا سويسرلاند ودوينك Liechtenstein waa safe يعني shilal iyo way ka dhacaa laakiin wadan sharciisa adag yahay wadanku waa safe nidaam iyo kala dambeyn wadan le waaye marka waxay bixiyaan laysankooda qofka wuxuu haystaa 250 sano hadda keego kale waxa qaatay 2016 wuxuu dhacayaa 2062 waa 46 sano u gurtiga dalka Liechtenstein meeqa ku nool dalka Liechtenstein waxa ku nool 38,000 oo ruux Vaduz caasimada haddaan joogno meeqa ku nool caasimada waxa ku nool 5,000 oo ruux ku nool waana caasimada wadanka waaye waxa kale oo ka weyn shan waa caasimada labaad meesha saa ugu dad badan maadaama 38,000 qof tihiin le meeqa shaqaalaha inta ka keentaan waa shaqaale yar qabtaan dadka wadanka u badan waa ajaanib shaqaalaha guryaha dhiso wadooyinka dhiso shirkadaha ka shaqeeya wadanka kale waa wadan shirkado badan wax soo saar badan inta waxa ka shaqeeya dad ajaanib ah dadka wadanka yani waa dad badan kama shaqeeya shaqooyinkaas waxaan maqlay xuduudka maalintii waxa soo dhaafay 20,000 xuduudda Austrian Jarmal Switzerland qayb kamid ah u soo shaqo tagto maadaama wadanka uu shirkado badan yahay marka dadka xatii ka tilaabaan ay u soo shaqo doonta Liechtenstein markay wadanka ay degan yihiin looma ogola sharci bay soo dejiyeen qofka oo Austrian oo baasaboorka haysta inuuna soo degi karin ilaa uu yani guur uu ku yimaado kale marka waa la adkay marka dadka saas u soo shaqo tagaan subaxdii habeenkina xatii ugu tilaabaan baasaboorka way meeqa sano lagu qaataa dalkan 30 sano lagu qaataa yaa 30 sano lagu qaataa laakiin waxa jirto waxa maqlay qofka haduu integration fiican sameeyo luuqadii uu barto qof nadiif wadanka aan dambi ka galin uu yahay wuxuu sameeynaa codsi u dirsanaa wixii yani integration iyo luuqadii iyo barqadii u gudbisanaa 3,000 lacag laga qaadaa codsi u dirsanaa codsiga marka waxa loo diraa yani kamaandayaasha dadka wadanka go'aan ka soo gaaray qofkan sharciyan mu istaahilaa قف ذنبي قلمي قف يعني هرمر سمي يعني ودن كله قف صدمية تعطنا وجرت مركو يعني إلا قف 10 سنة لو 10 سنة وقارو والله دل كان 10 وين على قبرته دل سديدي صدم كون دجان برلمان شن لا تنقف شن هوين كا maxay ku caan tahay Liechtenstein waxay ku caan tahay waa dad xoolo dhaqatay qayb kamid ah looda fardaha idaha araguma arkin laakiin waa dad wax soo saarkooda xagga xoolaha uu ku yimaado muhiimadan waxay tahay yani lagama qaado wax anshuur ah dadkaas xoolo dhaqatada wax soo saaro subaga caanaha buutarka marka waa dad aan anshuur laga qaadan waxayna caan ku tahay xoolo dhaqatada waaye iyo barafka waxa loo yimaadaa
buuraha yani qayb ka mid ah oo Trisenberg jirto oo Hey. barafka kaliya lagu ciyaaro hoteelo leh oo yani dad wadamo dibadda ka yimaado u yimaadaan inay barafkaas waqti ku qaataan ku ciyaaraan marka inta saacan ku talagtanstaan waxaan joognaa hadda meelaha ugu waaweyn ee xoolaha lagu dhaqdo iyo beero xagana waxaa weeyaan dabcan garaajkooda aan dhaho garaajkii xoolaha warshad dhan ayaa meesha ku yaala oo kaydkii iyo wixii oo dhan iyo cawskii dadkan way fakereen ma garatay oo wixii soo socda xataa mustaqbalka ama winterka ma garatay u diyaar garoobay halo kaas waa kan number buu leeyahay mid walba number buu leeyahay mid kale ma rabtaa si gaaja qabata miskiinka ansiyo iyo dalkii oo kale xoolaha waa inaa laga faa'iidaystaa ma garatay waxaan caano iyo cheese iyo yogurt iyo laga samayn karaa millions of millions waxaa kan waa gaarigii cawska malaha ururinayay lagu xidhayay kan waa babygii waxaan tegana haddana beerihii oo waayo dhowr biloodii samar leeyihiin oo dhowrka bilood bay ka faa'iidaysanayaan ma garatay dalkuna aad buu u yar yahay 38,000 oo qof baa degan dalka dhanba waa ka wadan wax soo saar leh xagan digaagana qayb kale xagaas buu leeyahay waa warshad oo caadiya xoolaha ma garatay marka haddana qayb kale magaalada laga tusinaa kaliya tan waxay noo tahay 10 dadka xoolo dhaqatada dalka jooga ka faa'iideysta inta yar geelkaaga arigaaga loodaada ka faa'iideyso saasoo kale u samee sidii yani wax ka gatid millions ba ka helaysaa inta yar waxaa soo gaarnaa hadda xadka Liechtenstein iyo Swisska inta ku yaala xadka wuxuu ku yaalaa geedi buuntadan ayaa kala qaybisay xadka Liechtenstein iyo Switzerland haddana kan insha Allah waa soo arkaynaa buuntadana kala qaybisa labada xad waddanka Liechtenstein iyo Switzerland yani wabigan iyo yaa iskale wabigan waa u kala qaybsan labada waddan haaf kulli mariyaan soo eegno xadka inta ku yaalo halkan waa Liechtenstein waxay raada halka u socdana waa Switzerland halkaasna waxa ka muuqda magaalooyin kala qaybinayay tan waa Vaduz caasimadda Liechtenstein tanna waa Switzerland waa magaalo ka mid ah Switzerland okay hadda socdo Liechtenstein هذا صار Liechtenstein ku jira haddana Swisska jooga لبيت مثلا dalka joogta integration ama maxaa samaysaa horumar 12 sano waddanka jooga marka uu hore waxaan xoog saaray inaan barto luqadda way markii luqadda bartid waxyaabo badan ku fududaanay xagga sharciga shaqada iyo nolosha marka alxamdulillah luqadii waa bartay integration badan waa sameeyay hadda maanta heer waxa taagan alxamdulillah dadkii yani turjubaan Soomaaliyeed aan Soomaalida u turjumo bulshada waxay u baahan tahay yani xafqabaqaamid xafladaha ciida iyo barnaamijyadaas inaan u fududeey oo kala shaqeeyo marka ma sha Allah taas ka gaar dhigi karaa okay waxaan joognaa magaalada Vaduz meesha ugu sareysa xaga maxay tahay halka waa xarun guriga weyn oo weynaa oo boqorka uu deganaa xaruntii weyneed oo boqortooyada Liechtenstein joognaa maanta caadi weeyaan xagan uu degan yahay qasrigii boqorada okay Liechtenstein fiuga ka waran fiuga xagaas wala aad u qurux badan fiuga ma sha Allah waa wadan green qurux badan ما شاء الله بينا ولاي مرك ما شاء الله Liechtenstein ودن برواق سؤالك ويديريا وحمق الرير Liechtenstein الدوكا يقول لعق بدر رميا ويقول لعق بدر أنا ما ودتك ودنك وادقنت لعق بالليل هلا لعق لي هرتي ودن كان وحولي شركة بدن وحصو صار لي مرك شقادنا لعق في أنا لقى بحير فضلك كوباد الدوكا وجو لعق بدر قطر كحكتا Liechtenstein نمبر 1 حكى قفك حتى دخليسا سوق لا يعني ما قرأتي اوكي قدروا سوشيال ميديا هذا هوس بكالسان سؤال هذا قبطان هذا Liechtenstein منسان هذا ور بحين كربتان هوس بكالسان هيجي المامين عنك سبسكرايب لايك كومنت ونمو قالك سو صودا واركم ما تعيرين انا ما دام الصوبه وقت فرحد وين النوت هاي ما شاء الله ما ستولا